masaladaadii weydiin rabta waa hebla xukunkeeduna sidaas weeye iimaankana anaa kaa qaatay. subxaan allah, nin dhan ayaa waxaa laga qaatay iimaankii ayaa laga qaatay. bal kaalii hadda ila dhegaysta qisada iyadoo dhammaystiran. sheekh cabdulqaadir aljiilaani wuxuu yidhi xilligii xerowga nin yar aan ahay wax baranayay yaa waxaa la sheegay magaaladii aan joognay nin shiiqi wax noogu akhrinayay xer badanna shiiqu u lahaa. waxaa laga sheegay yidhi nin dadka dhex jooga siduu dadka u dhex joogaa la weynaya, isagoo kor u sii haadaya la arki mayn, isagoo dhulka sii galaya la arki mayn, isagoo istaagoo sii tillaabsanaya la arki mayn, siduu dadka u dhex joogaa la weynaya. haddana isagoo meeshii fadhiyaa la arkaya, isagoo kor ka soo degay la arki mayn, dhul asagoo ka soo baxaya la arki mayn, asagoo soo socda looma jeedin, waa la waayey. muddo ka bacdina meeshii joogaa. ninkii shiiqa ahaa marka oo darsiga noo akhrin jiray ayaa xoogaa hinaasa taabatay, xoogaa masayra. baasha inkaaray qabtaa moogtahay madaxtinimada qofka hadday gasho si wadaad maskiina loo tilmaami karaa xoogaa. wuxuu yidhi ninkii shiiqa ahaa, anugu ninkaasaan waxaan soo su'aalayaa laleeyahay waa weli laleeyahay, masaa'il uu la afbeelo maanta ka jawaabi waa in soo weydiinaya. nin kaloo fiicanoo la socdo nin weyn xerowina wuxuu yidhi anigu wixii uu ku jawaabaan soo dhegaysanaya. anigu marka labadoodii warkoodii ma dhihina waxaan idhi anigu ninkaas aragtidiisaan soo barakaysanayo. shiikhii iyo xerowgii iga weyna, shiikhuna ninkuba la dagaalsan yahay, xerowgiina wuxuu ku jawaabaan dhegaysanayaa huu yidhi. anigu laakiin waxaan idhi aragtidiisaan soo barakaysanaya. haddaan meeshii tagnay wuxuu yidhi sheekh cabdulqaadir aljiilaani, markaana nin yar weeye ogow. markii assalaamu calaykum wacalaykum assalaam salaamtii laysi salaamay, ninkii shiiqaayoo loo socday wuxuu yidhi adiga shiikh hebelow waxaad iigu socotay masaa'il aan la afbeelo inaad i weydiido. masaladaad i weydiin rabta heblo weeye, saasaana xukunkeedu yahay, iimaankiina waan kaa qaatay. ma usan weydiina ogow, waxaad iigu socotay saas, masaladaad i weydiin rabta waa hebla xukunkeeduna sidaas weeye, iimaankana anaa kaa qaatay. cabsiyaa i gashay, aad baan u baqay. markaasuu ninkii kala fiiriyo ninkii shiiqa wuxuu yidhi adiga waxa aan ku jawaabaad dhegaysan rabtay, wixii aan dhihi raba inaad dhegaysataad rabtay oo saasaad u socotay, waadna maqashay, adigana diinka nuurkiisaan kaa qaatay, diinkaagu baraka yeelan maayo. markaasaan wuxuu yidhi naxtin darteed anaa ilaa hare waxaan is kooma gali inaan kooma maskaxda miirka iga taga ku sigto, adna aan kugu dara. markaas wuxuu yidhi maadhoodu waa fiican tahay, booskaada ay dhaxlaya. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، marka koowaad qofkii qisadan u arkay in ay khuraafo tahay, been tahay, waxaa leeyahay qofkaasi ilaahay ku shukri in uu ku siiyey caqli caafimaad qabo, alxamdulilah dheh. laakiin kan oo rumaystay oo u qaatay hadalkan ama qisadan inay run tahay, waxaa leeyahay ilaahay ku caafiyo. waxaa laga yaabaa inuu ii dhaho war waxaan waa karaamad weeyaan. waxaa leeyahay waxaan karaamad ma aha. maxaa yeelay meeshaan waxaa la sheegay yaa qof dhan waxaa laga qaatay iimaankiia laga qaatay, ya mid kalena waxaa lagu sameeyey diinkii nuurkiisii ayaa laga qaatay. subxaan allah, kaanamaa waxyaabahaasi in oo weliga gacantiisii ku jirto oo kale ayay ka dhigeen. subxaan allah, annagana waxaa ognahay hoolahaasi in ay subxaanahu wa tacaala gacantiisii ku jirto. hanuunka iyo baadida wax weeyaan allah subxaanahu wa tacaala gacantiisa ku jirtaa. nacam, dalika huda allahi yahdii bihi man yashaa waman yudlil famaa lahu min haad. nacam, allah subxaanahu wa tacaala ayaa dadka hanuuniyo, asagaa baadiyeeyo subxaanahu wa tacaala. lahu alxikma albaaliga subxaanahu wa tacaala. man yahdihi illaahu fahuwa almuhtadi. nacam, ciddii ilaahi subxaanahu wa tacaala hanuuniyo taasaa hanuunsan. waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. nacam, war dadkan caqli xumadoodii bal u fiirso. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam bilaa nisaac waxa weeyaan awliyada sayidkoodii weeyaan. ayib, adeerkiisii markuu dhimanayay abu taalib, rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku lahaa adeerkiisii qul laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah kalilee dheh. yaa wuxuu rabay adeerkiisii inuu ku dhinto iimaan inuu ku dhinto. nacam, allah subxaanahu wa tacaala aayaduu ku soo dejiyey, wuxuu ku yidhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa wahuwa aclamu bilmuhtadiin. nacam, howshaasi howl adi leedahay ma aha. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dadka hanuuniyo.
نعم نبي صلى الله عليه وسلم نعم والله أصغي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا هداية داسي هنوكاسي وهداية متقانا إرشاد ويان هداية بيان ويان نعم أما هنوكان وهنوك متقانا أو توفيق ويان إلهي سبحانه وتعالى أيادتك وافجيو نعم مركا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيا لليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نعم مالك الإله سبحانه وتعالى وعكير النبي جيسي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم أيا لليه مركا كنا وحو ليه قفنا وحويا إيمان كيسو كقاضي نعم متكلنا وحويا نوركي الدين كدن أيا لغا قاطي سبحان الله هنونك إبادة وحويا إلهي تبارك وتعالى قعنتي سيكجرتها صدق النبي صلى الله عليه وسلم عمري إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن نعم وحويا إلهي سبحانه وتعالى قلوب عباد ديسي أما أدومديسي وحويا لبديسي فرود أي كجران سبحانه وتعالى يقلبهما كيف يشاء صدو الضون أي أرقرقيا نعم نبي صلى الله عليه وسلم وحكود عيسنجري اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك نعم دعاك النويج صلى الله عليه وسلم وحكود عيسنجري اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نعم رسولك صلى الله عليه وسلم أيا كود عيسنجري كان وحكو ليهي ولي أيا سدان سمايي ما أبو ذا هورتا ولي إنو سدان سمايو سبحان الله ذات كان وح إيدا فهم ملاه وحا مقلايي إيكول له يا كلمة كن أي وحدهن شيخ جيلاني وحو هيسنجري كلمة كن شيخ عبد القادر الجيلاني إلهي وحو سيئي كلمة اللي يرادو كن كلمة أهو اللي يرادا إلهي سيئي سيدي أسوى سعودت أدوك مردم اللهم أركن بعد شيخ عبد القادر الجيلاني وحي كسر الله انتقى عند شيخنا الشيخ ويس القادرية كلمة كن فيكون شيخنا الإنسانيي شيخنا الشيخ ويس القادرية وحوها اسم الأعظم صعد أيوها شيخنا الشيخ ويس القادرية والشيخ كومي طريقني هي حقيقني هي شريعتي ذات كان محي الله سبحانه وتعالى أضافين بالله عليكم إيشاقا وصدق القطعان زعم شيخهم فاستبسلوا سفها تسليما وإيماء